gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe Sheikh Ahmed Ibrahim Xaaji Siid oo wareysi gaar ah siiyay Juba Shabelle News ayaa waxa uu baaq u diray beelaha ku wada dagaalamaya deegaanadii dhawaan la gubay ay kamid ahayd Jaamaca Misr Kumisiro iyo Baghdad waxa uuna beelahaasi ka codsaday in ay joojiyaan dagaalka ay qaataan nabadda. Sheikh Ahmed Siid ayaa sidoo kale waxa uu beelahaasi kula dardaarmay in dagaal waxba uusan taraynin 30 sano ay colaad ku soo jireen haatan wixii ka dambeeya ay qaadan doonaan nabadda. Waxa uu Sheikh Ahmed Ibrahim Xaaji Siid oo beelahaasi u sheegay in maanta wixii ka bilowda ay qaadan doonaan nabadda. waa kan Sheikh Ahmed Ibrahim Xaaji Siid oo ka hadlaya arrimahaasi. fursadan maanta waxaan rabaa inaan ugu faa'iideysto inaan baaq u jeediyo dadka walaalaha ah oo Soomaaliyeed oo reer Hirshabeelle gobolka Shabeellaha Dhexe khaasatan labada degmada Balcad iyo degmada Jowhar dadka walaalaha ee ku dagaalamaya dagaalkooda soo cusboonaaday ayaa rabaa inaan baaq u jeediyo. midda ugu horeysa waxa weeye walaalayaal, dagaalku sidiisaba ma fiicna, diintana kuma banaana, shareecadana kuma banaana, dastuurkana kuma banaana. markaan diinta xaggeeda aan u leexano, umirtu an uqaatila xataa yaqulu laa ilaaha ila allah fain qaaluu acasumat minii damaa'ahum wa amwaaluhum ilaa bixaq. laba ahlu tawxiid ah oo islaam ah ma aha inay dagaal maraan. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول هما في النار. تعالوا على دين الإسلام مركي عنك عنه دستورك دولته أما شروع الدولة إلى ذاي ومد الصوماليات ملكس أي جوتوها واجب وأن إنك مواطنك إن nabadgelyo uu ku noolaado oo noloshiisa nabadgelyo ay ahaato. dagaalku waa wixii istaraay ama faa'iida hadduu leeyahay ama khasaar uu leeyahay. muddadii aan soo marnay oo ilaa 30 sano ku dhawaade ayaa nagu filan. haddana waxaan leenahay maanta haddaan nahay dadka degan Hirshabeelle ama gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe وعلى دولة ودولة دحلة دولة أو فدرال لنا هاي نصيب وحن ويانا دولة هيرشبال أو دولة قبلة لنا هاي وعاصمة دي لفظ كده قول شبال هذا أي تاع دولة هيرشبال أو ما أنت على لنا هاي ودولة كمبطة مدحوين هذه برلمان كذي golaheedii wasiirada haday tahay wasiirkii arrimaha gudaha iyo kii amniga intaba waa leenahay. waxaa intaa u dheer maamul gobol aan leenahay oo gudoomiye gobol aan leenahay. marka ma imaan kartabo in la dagaalamo ma imaan karta, laakiin waxaa imaan karo mufaawadaad wax la yidhahda ama tafaawud ama wada hadalaa imaan karo. markaa dib uga noqdo dagaalkan oo hadda soo cusboonaaday runtii mar hore bilaabay muddo laga joogo 5 bilood. sida aad ka warhaysaan dowladdu haday tahay dowladda Hirshabeelle ama maamulka gobolka ama dowladda federaalka laftigiisu ma aha mid ay ka fariisatay. waxaa jiray in mataqaanaa fadhiyo badan la sameeyey oo maamulka gobolka laftigiisu uu sameeyey in meesha dagaalka ka dhacay ay la tegay. safarkii ugu dambeeyay madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha maamulka gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha ay ku tageen oo dhammaanba xal lagu raadinayay ayaa jirtay. ayadoo gobosha ugu dambeeyay la fidi doona hadduu ilaahay yiraahdo muxuu ahaa gobolka Shabeellaha Dhexe. hadda waxaan ugu baaqaa dadka walaalaha ah in laga soo wax waliba dowladdu. sidoo kale waxaan haddana mahad aan u jeedinayaa
degmada Balcad. ma ahan markii ugu horeysay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekh Axmed Ibraahim Xaaji Siid oo baaq caynkan oo kale ah u diro. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa, Juba Shabeelle News, magaalada Jowhar.